halhayskeenii berigii doorashada ay socotay ahaa muxuu ahaa qabyo ninkeedaa dhammaystira dowladda dhisidu madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ayadoo qabyo ah ayuu madaxweyne cabdullaahi yuusuf ku wareejiyey madaxweyne cabdullaahi yuusuf allah u naxariista ayadoo qabyo ah ayuu ka tegey oo madaxweyne sheekh shariif uu yimiday madaxweyne sheekh shariif ayadoo qabyo ah ayuu igu wareejiyey anigana waxaan qirayaa ayadoo qabyo ah inaan ku wareejiyo maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin qabyo kasta midda ka dambaysa waa kasii yaraanaysa qabyada waxbaa ka qabsoomaya madaxweyne ka soo yimaado qabyadii loo dhiibay waxbuu ka qabanayay wixii u dhinaayay war halahaanna waa qabsoomeen halahaanna waa dhiman yihiin asagoo dhiibay maanta marka maxaan joognaa qabyadii wax maa ku darsoomeen mase gadaalaan u soconay qabnadii wax badanaa kasii degay annagu marka dowladda maxaan ka rabnaa madasha xisbiyada qaran waxay u taagan tahay xuquuqda muwaadinka sarraynta dastuurka iyo sharciga caburinta iyo cadaadiska iyo waxa lagu haya dadka in laga daayo iyo mustaqbal saaxada siyaasadda inay furan tahay dadku siyaasiyan inay hadli karaan siyaasadda saaxada telefishinka ka haysta wiilkaaga shaqada laga soo eriya hooyadan xalay xafladaasay ka qayb gashay maxaan ku yiraahdaa waxaa laga eriyaa gabadheeda muxuu ahaa ciidamada booliiska ku jirta laga soo eriya ama militariga laga soo eriya agaasimahani nikaax nin hebel oo mucaarada gabadhiisoo la nikaaxsanay oo ka qayb galay biri shaqada waa laga eriyaa waxaasi waa ka barye wixii la dhihi jiray waa waxaasi waa lagu soo noogay horaa loogu soo noogay wadda saxa maa ka joogaan leenahay dowladda maxaan ka rabnaa marka dowladda hal midaan ka rabnaa dowladda qaanuunka inay ku dhaqantaan rabnaa bas dowladdu sarraynta qaanuunka inay ixtiraamtaan rabnaa bas ganacsatadaan magaalada joogto tahdiidka lagu hayo maalin walba godka looga yeeraa oo hay-adaha inta la yimaado laleeyahay soo xira ee shaqaalaha xagga keena waa la iskiriin garaynaya keen taleefankaaga adiga dabakac gurigaaga igey waxaasoo dhan dowladi waa yeeli kartaa waxaasoo dhan dowladi waa yeeli kartaa laakiin goormay yeeli kartaa qaanuunka markay u soo martay yeeli kartaa buugga yarkaa dastuurka aha tilmaamayo goormaa qofka muwaadinkaa la baari karaa gurigiisa goormaa la baari karaa isaga goormaa xurriyadda laga qaadi karaa see looga qaadi karaa war waddadaas le u soo mar waddadaas ha la maro beledkan dowladdeenna maalinna qaanuunka kuma leexanin sideedaba ayadoo ku leexan karta xataa oo wax u diiday aanay jirin saas uguma leexan jawaari ha la rido mukhtaar roobow ha la soo xiro waxaad fiiri mukhtaar roobow dowladdan wiilasha maxkamadaha ay u magacaabato u jooga ayada inay uga goyso muxuu ahaaye warqad lagu soo qabto dowladdu ma awoodi waaye etoobiyaan iisoo qaba diyaarad iisoo saar qarab meel ii gili ilaa maanta waa ku jiraa wax lagu haystay qaanuun lagu haysta lama yaqaano iyo cid haysato waa gar daran yahay iyo waa gar leeyahay iyo maba joogtaba laakiin qofka xorriyaddiisa haddii laga qaado iyadoon sharciga loo marin xabsi ma ahana waa afduub waaye qofkaas waa la afduubtay lama xabisin xabsi waxa waaye dowla iskale qaanuunaa lagu galaa qaanuunaana looga soo baxaa xabsiga laakiin haddaan qaanuun lagu galaynin qofka xorriyaddiisa lagu qaadaayo xabsi ma ahana waa qofka u afduuban yahay ama kooxu u afduuban yahay dad badanaana sidaas ah marka doorasho waa waqtigeedii taas waa ballan biyo kama dhibcaan ah waxaan ka rabnaa dowladdu inay sheegto sida laysku dooranaa bas ayada waxa laga raba waxa waaye sidaana laysku dooranaa sidaasina sida ay noqonayso haddii qaanuun tilmaamaayo diyaar uu jirane qaanuunkaasaa loo hoggaansamaa qaanuun tilmaamaya hadduu jirinne talay ka rabtaa talay dowladdu ka rabtaa go'aan kama gaari karto waxaan qaanuun ku salaysnayn oo dowladdu ay go'aan ka gaari karta ma jirto baarlamaanka federaalka ah waa sharci dejin wuxuu wakiil looga yahay sharci inuu dejiyo sharciga loo dejiyo sharcigaas haddii la isla aqbalo oo ka soo baxo baarlamaanka uu shaqayn karo waa aqbalsanna haddaanu sharciga shaqayn karin ama aanu jirinne talay ka xigtaa dowladda iskama laha iyada waa dhamad dowladdu waa khaadim waa adeege waxay ku adeegtaa qawaaniinta loo dhiibay ku adeegtaa qawaaniin hadday weyso saan waxyeelnaahay leedahay waa soo noqonay dadkay u soo noqonay saan waxleedahay iskama sii socon karto waxaan rabnaa kororsiima inayna dhicinaan rabnaa doorasho inay dhacdaan rabnaa
doorashadu mid ka qurxoon oo ka horumarsan tii 2016 dhacda inay noqotaan rabnaa xisbiyo siyaasadaysan oo sharciyeysanaa joogay doorashada inay ka qayb galaan ay qayb ka noqdaanaan rabnaa intii doorashada meesha ugu fogoo la geey karo iyo nambarka ugu badan ee Soomaalida ah ee codayn kara inay codeeyaanaan rabnaa waxaasoo dhan in la isla cadido oo la isla cayimo waxay u baahan tahay in laga wada tashaday u baahan tahay madaxda waxaan u sheegaynaa qofna shaati asiga ku jin ah oo dawladnimo ma tolo karo shaatiga dawladnimada waa ready made meeluu suran yahay qofkii uu la jiyaha gashaa laakiin qof gaar ah oo asiga inta isku cabiro tasho mid asiga u gaara ma jiro mid Soomaaliyeed oo Soomaalida leedahay oo tolana jiro kaasina si dimuqraadi ah lagu gaaraa oo ku yimaada ninkii geeyaa galaaye yaana madaxweynahan iga tuur ee kan ii keen ee kaas xaq gudoomiyaha baarlamaanka tuur kaas keen iyo sarkaalkan iga raacday iyo xaakinkan iga keen iyo maalin walba sarkaalkan ninka mucaaradka Abu Salaamaha ha laga qaado jagada ay kana masaas war waxaasi waa hortiin jiraa soo waayay